xasadkaas haddaynu kelmad ka nidhaahno xasadku horta waa qofku inuu tamaniyo oo jeclaysto nimco ilaahay cid kale siiyey in ilaahay nicmada cidda ka qaado inuu ka xumaado oo ka murugoodo oo ka cadhoodo nicmo uu qofka la haysto oo uu jeclaysto oo tamaniyo alla yaa dhaafiya alla nicmada yaa weysiiya marka waa cudur xun oo dilaa ah oo khatar badan nabiguna calayhi salaatu wasalaam aad buu uga digay wuxuu nabigu yidhi dabba ilaykum daa'ul umami qablakum war waxaa idinku soo gurguurtay oo idin soo galay cudurkii ummadihii idinku horreeyey ku dhacay albagdaa walxasad buu nabigu calayhi salaatu wasalaam bal nabigu wuxuu caddeeyey laa yajtamicu في عبد مؤمن الإيمان والحسد في جوف عبد لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد قف لابتي أدون قلبي إيمان إي حسد كما كل مان مؤمن بانه حاسد نوانه سورة قلمه لابد مدون باطح خطرتاس نبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا dadku ka zuuli maayaan inay khayr ku sugan yihiin intaanay isxastin marka xasadku waa cudur aad iyo aad u khatar badan waxa la yiraahdaa dambiga ugu horeeyay ee ilaahay laga galo xagga samada waxa sababtu dambigaasi ku dhacay wuxuu ahaa xaasidnimo oo dambigaasi muxuu ahaa ibliis markuu diiday inuu nabiyullaahi aadam u sujuudo ee amarkii ilaahay qaadan waayay muxuu ku cileeyay ana khayru minhu buu khalaqtani لئن قال هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا محوك حمي لئن كرمت علي وادي قفعني وادي قفض الشيء كادي قفض الشيء ولقى يسجد ولقينا عدو بانو هانيا ودارنيا marka maxaa ku kalifaynu ilaahay amarkiisii diido xaasidnimo aadam buu xastayay oo nicmada ilaahay siiyay fadilida la fadilay ayuu aadan ugu xun yahay dambigii sidaas oo kale ugu horeeyay dhulka ka dhacaana xaasidnimo ka dambeysay oo labadii wiil ee ilma aadam markay qurbaanka sameeyeen ee midkood qurbaanka laga aqbalay kii kale laga aqbali waayay fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar muxuu kii laga aqbali waayay qaala la aqtulannaka ayuu isla soo taagay hor maxaad igu maagaysaa in laga aqbalay baan ka xumahay ana laga aqbali waayay nicmada ilaahay ku siiyay ana aanu isiinin baan ka xumahay dambigaasina xasad baa ka dambeeyay ka horan xasad baa ka dambeeyay marka xasadka maxaa la iskaga daweeyaa dowr qodob baynu sheegaynaa kow waxyaabaha la rabo xasadka inaad iskaga daweyso waxa iskaga ilaaliso waxa kamid ah inaad ogaato oo aad iska dhaadhiciso waxaan aad ka hor imanayso ama aad ka xun tahay ama aad ka cadhaysan tahay inuu yahay qadaa'ullaahi wa qadarihi ilaahay qorshihiisii iyo qadarkiisii iyo qadihiisii baad diidan tahay oo ka xun tahay marka khatar bay weey waxa kamida waxyaabaha la rabo inaad iskaga daweyso inaad isdareensiiso cidda ugu horeysa ee xasadkaaga xaasidnimadaasi ay dhibaysaa inay adiga tahay wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli المتضرر الأول بالحسد أنت قصي وريان نين باكري مسكينه خادمه نين بقر وشغين جري نيكا بقر كايو خادموها او مشاهر سين جري او خدمين جري كدبنا مid kale ayaa ku xasday shaqada uu haysto dabana wuxuu iska jecelaystay ninka in shaqada laga xayriyo xaasidnimo oo isaga la siyaamo ila aakhiri kadibna boqorkii buu u yimi markaasuu wuxuu ku yiri ninkan khaadimka kuwahe ku shaqeeya wuxuu ka sheegay ma ogtahay dadka u sheegay markaasuu yiri muxuu iga sheegay markaasuu yiri wuxuu ka sheegay in afkaagu uro inaan laguba soo dhawaan kareyno afkaagu soo uro ayuu dadka u sheegay marka waxa soo ka fidiya ka sheega aad buu cadhooday markaasuu yiri sideebaan arinta ku xaqiiqsanay markaasuu yiri berita markuu ku yimaado bal eeg isagoo sanka haysta ayuu ku soo gelaya mar hadduu sanka isagoo sax haysta ku soo galo macnaheedu waxa weeye afkaaga uraya ayuu ku qarinaya saasuu boqorkii u arintaas ku qafilay aroortii buu ninkii waa ku casumaya u yeeray ninkii miskiinka ah meel buu geeyo raashin basal lagu ka dhirgiyay iyo toon
raashin basal iyo toon leebu ka dhargay markaasuu yiri war boqorka hadda markaad u tagto boqorku toonta uu necab yahay basashe afka gacanta saar yani toontaas iyo basashaas u soo urine afka gacanta saar markaad u tagto ninkii uu soo noqday boqorkii buu yimi isagoo af gacanta ku haya ayuu u soo galay dabeetana boqorkiina maxaa ku qafilaa ninkan markuu soo galo asagoo gacanta saaraya macnaheedu waxa weeye afkaaga uraya kadibna boqorkii warqad buu qoray warqadda wuxuu ku qoray nin buu u diray shaqaalihiisa kamid wuxuu warqadda qaado hebel u geey warqadda qorana caadadu waxay ahayd marka warqad qof loo qoro ee hebel u tag la yiraahdo waxba loogu qoraa lacag si baa loogu qoraa warqadii buu loo ordayo warqadda waxa ku qoran ninkaasi markuu ku yimaado madaxa ka goo dil warqadii irida markuu kala baxay oo la soo ordayo ayaa kala kulmay kiyo meesha geedka fooda ku hayay oo isla kiyo ninkii madaxiisa banaanka lagu soo tuuraya ayaa la kulmay war boqorkii ka waran warqadan maxay ahayd de boqorkii warqadan uu soo siiyay lacag buu igu soo qoray hebel buu yidhi ula tago lacagta ka qaado lacag baa igu qoran arniyow aniga xogaa yar xaaladaysan isii buu warqada taana hoob ninkii iska miskiina oo daacada buu ahaa warqadii buu dhiibay kii warqadii buu sii daayay ninkii buu la tagay ila warqadan waxa ku qoran ninkii warqadaasi tii ku yimaada dil warqadii buu eegay warqada saasa kugu qoran war aniga ma aha warqada nin kale la siiyay oo waxa wax taray madaxa laga jaray waliba waxa ku qoran warqada madaxiisa intaad madaxa ka jarto madaxiisa ii soo dhiib madaxiisa kish lagu soo riday boqorkii loo keenay marka walaa yahiqul makru illa bi ahli xaasidnimadu marka saaxiibkeed bay qofkeeda ka bilowdaa qisa kale wariyaano nin baa saas oo kale nin bay daris ahaayeeno dabeetana ninkii bay isku yara dhaceen ninkii buu xasday marka nicmadu haysta iyo xooluhu haysta iyo waxaas ayuu xasday wuxuu raadsaday marka nin dadka cawriya ayuu raadsaday ninkii buu yeeray markaasuu yiri niyahow lacag baan ku siinayaa waxaan rabaa ninka hebela inaad cawrido oo waxa uu haysta aad maartay ka baabiiso cawri kaga baabiiso ayaan doonayaa haye way lacag buu sheegay oo la soo raacay bal tusbuuri ninkan meeshu degan yahay soo waday mu meel soo istaajiyay ayuu halka damcay inuu ka tuso ninka gurigiisa iyo xoolihiisa iyo wakaas oo ninka waa halka degan gurigaas uu leeyahay xoolahaas uu haysta waxa isagaale kii wax cawreeyay waa odayaan indhaha wax badan ka arkaynin kadibna waxba waxa loo tilmaamayo arki waayay markuu cabaar faraha fiifaxu tilmaamay ayuun buu isay ku soo jeedo oo ma halkaas aad adigu ka aragtaa buu yiri xawaarku ma halkaas aad ka aragtaa alla indhahaagu fiicana kii uun buu badam indhii yiraahdeen leesaga inuu reerka ninka islaameed inuu cawriyo ayuu u soo kaxaystay isagii buu kaga soo qaaday dam kawdhe marka wallahi yahiqul makrus illa bi ahli waxa kamida oo aan rabaa qofku inuu ogaado xasadku waa dhaqan yahuudeed sida halkan badaayada ma aynu ka fahmayno marka yahuudiga noona xaasidnimada iska ilaali waxa kamida waxyaabaha la rabo inaad iskaga ilaaliso inaad fahamto xaqaarada dunya adduunyadan iyo liidashadeeda iyo ila eegtiina adduunyadu qiimo kala hayn oo ilaahay adduunyada qof uu jecel yahay iyo qof aanu jecelayn bay ilaahay adduunka waasiya waxa kamida waxyaabaha ka badbaadinaya inaad had iyo goor akhrido quraanka iyo ahadiista nabiga kaleey salaatu wasalaam ee xasadka ka digaysa marka waa cudur aad u halis badan Allah inaga badbaadiyo